runtii annaga waxay noo tahay waqtigan hadda aan ku jirno iyo guusha aad soo gaarteen dhalinyaro waa guul taariikhi ah oo waayahan Soomaaliya aan laga maqlin. Soomaaliya inta badan waxa lagu asteeyaa ama la yiraahdaa waa meel magacyo badan loo bixiyo oo xun ah. Dhalinyaradeenna waa maqlaysaan oo waxa la yiraahdaa magacaas xun ay leeyihiin oo dadkay laayaan. oo caalamka iyo adduunka oo dhan yaa ka qeyliyay. shacabkooda ka qeyliyay, dadkooda ka qeyliyay. marka wax wanaagsan oo aad u fiican waayahan Soomaaliya laga ma sheegin. marka waxaan idin sheegay taariikhda gasheen xulka qaranka tihiin. laakiin anigana tiimkayga tihiin. tiim kale ma lihi xulkan qaranka awal raggaasa tiimkayga ahaan jiray xulka qaranka Maxamed Ismaaciil Cafiifiyo laakiin hadda idinkaa bedelay hadda. macnaheedu waxay tahay hawshii aad qabateen iyo meesha kaalintaad ka gasheen waa waxay Soomaaliya runtii ay ku faani doonto weliba waqtigan adag lagu jiro. haddii xaaladdu iska ficnaan lahayd oo uusan dalka dagaal sokeeye ka dhici lahayn hadda guushaas aad keenteen macno ma lahaateen. laakiin guusha hadda aad keenteen waxay macno weyn u leedahay xaaladda adag aan ku jirno iyo magac xumada Soomaaliya ee adduunka ka leedahay Afrika inaad kor u soo qaadaan oo astaantii qaranka aad muujisaan inay Soomaaliya soo noolaanayso oo idinkuna aad qayb ka tihiin inaad Soomaaliya dib u soo nooleynaysaan. marka aad iyo aad yaan kugu mahad celinaynaa aad iyo aad. annaga waxay nala tahay waad guulaysteen intaas oo dal yaad ka soo guulaysateen idinkoo dalkiina burbursan yahay idinkoo dalkiinu uu xaaladan adag ku jiro dowladdiinu iska daciif tahay oo aysan tabar badan lahayn oo hadda ay soo kabanayso yaa waxaad gaarteen meel aad iyo aad u sarreysa oo aad ka badiseen dowlado badan oo aan burbur ku dhicin. dowlado badan oo 30 sano soo dhismaayay yaad ka hormarteen. guushaas runtii aad gaarteen qayb weyn waxaa ka ah Cabdiqani iyo xiriirka kubadda cagta oo runtii muddo dheer soo shaqeeyay iyadoo weliba dowlad la'aan ama dowlad jilicsan ama dowlad dhib ku jirta ay ka dhex shaqeynayeen oo weliba dagaaladan iyo qarxyadan ay ku socdeen. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin sacrifice-kay soo galeen iyagana taariikhda qorays insha Allah. hadda wixii ka dambeeya marka hadda wixii ka dambeeya dagaalkan waa ku wada jirnaa kulligeen insha Allah hadduu Ilaah yiraahdo xaaladiina maalin yaan ula soconaynaa tababarkiina iyo ciyaartiina iyo noloshiina iyo waxbarashadiina iyo kulli waa la soconaynaa insha Allah hadduu Ilaah yiraahdo bacdama aad astaan qarantihiin. 3 bilood soo socota waxaan isku diyaarinaynaa August ciyaaraha 17 sano wax ka yar ee Afrika yaa isku diyaarinaysaan 3 bilood soo socota. naftigeena waxaa nalaga rabaa dadaal aad iyo aad u weyn in la galo oo aan lis dhigan oo Afrika aan ka soo qaadno oo la yiraahdo Soomaaliya waa soo noolaatay waxaana soo nooleeyay dhalinyaro. meesha dhalinyaro kale ee burburinayaan idinka inaad soo nooleysaan Soomaaliya oo magac fiican iyo sharaf fiican iyo meesha Soomaaliya adduunka ay kaga jirtay aad dib ugu soo celisaan. macnaheedu waxay tahay Ilaahay ka sokow waxay ku jirtaa gacantiina iyo dadaalkiina iyo shaqadiina iyo waxay ku jirtaa sida aad u shaqaysaan iyo ku jirtaa. annagana wax alla wixii garab ah oo gacan leh oo dadaal ah oo aan ka geysan karno sidii aad number 1 aad u noqon lahayd Afrika waa idin kala shaqeynaa insha Allah hadduu Ilaah yiraahdo. waxaan rabaa inaan maxaan ku raahdaa Maxamed Ismaaciil Cafiif aan halkan idinkaga sheego way soo mareen meeshaad joogtaan. weydiiya iyaga sidii ahaayeen markii ay u soo ciyaarayaan magac Soomaaliyeed iyagoo xul qaran ah. dareenkooda weydiiya dareenkoodu wuxuu ahaa midaan caadi ahayn. annaga naftigeena markaas dhalinyaraan ahayn waa ku faani jirnay bacdama ay ahaayeen maxaan ku raahdaa dad u taagan qarnimada Soomaaliyeed calankeena kor u qaadaya iyaga idin sheegay dareenkooda suu ahaa
markaad matalayso dal Soomaaliya la yiraahdo feelinka iyo dareenku caadi ma aha marka anaga naftigeena waa soo nooleyseen dib baa waxa noo soo xasuuseen waqtiyadii hore iyo sidaan u noolaan jirnay iyo sidee aan ugu faani jirnay Soomaalinimada haddana idinkaa noo bilaabay hadda marka ogaada meesha aad Soomaaliya kaga jirtaan waa baal dahab ah waay meesha kaga jirtaan has dhiganina dadaalkiina laba jibaara saddex jibaara meeshaan waa meesha Soomaaliya ay dib ugu soo noqon lahayd sharafkii ay lahaan jirtay iyo magacii lahaan jirtay marka shaqadiina shan jibaara annagana insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waa idinla shan jibaarina waa idinla toban jibaarina hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah hadalkay waxaan ku soo gabagabeynayaa meelihii aad ku tababaran lahaydeen iyo qaabka aad u tababaran lahaydeen iyo sidii ahaan lahayd 3 bilood soo socota waxaan rabaa wasiiraddu inay iga siiso iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha xiriirka si joogto ah ay iga siiyaan warbixin hadba xaaladda meesha marayso insha Allah waana guuleysanaynaa Soomaa waa noo balan Soomaa inaad magacii sharaf soo celisaan Soomaaliya guul yani anigana